wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Professor Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibbi ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay qaabka looga kalluumaysan doono xeebaha waddanka Soomaaliya. waxa uuna sheegay in Dr. Maxamed Sayid oo ah qabiir xagga badaha ah iyo wasaaradda kalluumaysiga ay ku mashquulsanayd muddo 6 bilood ah qaababka looga kalluumaysan karo xeebaha dalka Soomaaliya. Professor Ibbi ayaa ku dooday in maraakiibta ay u ogolaan doonaan oo kaliya shabaag mucayyim ah si aysan u daldalan kheyraadka ka buuxa xeebaha dalka Soomaaliya. waxa kale oo ku dooday in Soomaaliya ay dan weyn ugu jirto in laga kalluumaysto xeebaha dalka Soomaaliya. waa kan Professor Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibbi oo taasharaxa ka yimid oo runtii in badan aan ka wada shaqaynaynay shuruucda kalluumaysiga ee badda Soomaaliya iyo arrimo badan oo la xiriira sida loo horumarin karo kalluumaysiga Soomaaliya. Dr. Maxamed Sayid oo runtii nin aanu saaxiibanahay ah, nin ah mataqaanaa PhD degree holder ah, kuna howlan arrimaha mataqaanaa horumarinta mashaariicyada muddo badan ilaa 6 bilood nagala shaqaynayay sidaanu tatawur uga samayn lahayn. horta yaa kalluumaysan karo, maxaa lagu kalluumaysanayaa, shabaqa lagu kalluumaysan noocuu noqonayaa, yaa loo ogolay inuu ka kalluumaysto Soomaaliya, maxaa faa'iido laga heli karaa in laga kalluumaysto badda Soomaaliya, ummadda Soomaaliyeed maxaa dano ugu jirta. waxyaabaha noocaas badan daraasaad badan lagu sameeyey ilaa 120 page ayay ka diyaariyeen. marka barnaamijkaas ayaanu u nimid inaanu anigii safiirka kolleed ka howlgalno, isla fiirino, kadibna marka aan la aadno wadamada Asia. hadda wasiirada kalluumaysiga ay ku shirayaan dalka Philippines Manila, oo runtii ayna rabnay inaan bal kooda soo qaadno iyo kan marka aan ku sameeyno contrast and comparison, macnaheedu waxa bal iska dhaxgeli karo iyo maxaa faa'iido u ummadda Soomaaliyeed keesa ku haboon in la qaato. ila badda aan qabno badda ugu dheer, marka maraakiibtaan u ogolaan karin inay ka kalluumaysato shabaq ay wataan badaha naga yaryar ee dadka iskale dawladda sida Mauritania, mataqaana Morocco, Oman ee 200 milyan ka soo xareeya badahooda. marka annagu habka ugu inaan baryootana maaha, inaan badda annada ka gaajoonana maaha, inaan dad barinana maaha in lacagna siiyaan. marka waxaan halka u nimid waxay ahayd inaan barnaamijyadas la qaadno haddii Ilaahay raalli ka noqdo muddo 2 bilood gudahooda insha Allahu ta'ala aan ummadda Soomaaliyeed aanu barwaaqada baddeena aan u soo bandhignaan doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo annagoo mar dambe qoladaba inaanu barino haddii Ilaahay raalli ka noqdo aan rajo ka leeyahay. TV Universal ayaa Professor Ibbi weydiiyey kol hadiiba maraakiibta shisheeye haatan ay ka gudbi kareen badda gacanka cadameed iyadoo lagu haysta weliba maraakiib dhowr ah, weliba dhammaantan ay gacanta ku dhigeen burcad badeeda lamaanayaal u dhashay waddanka Britain shatiga ay bixin doonaan nooca uu naqan doono. oo dad badan taas way isweydiinayaan, laakiin jawaabta ugu sahlan oo bixin waxa weeye cabsidaasaan run inaan baabino. waxyaabaha halka u nimid waxaa ka mid ah ninka nala fadhiya Dr. Maxamed Sayid wuxuu nagala shaqaynayaa in 25 doomood oo kuwa dheereeya oo aan karin xabadda inay mataqaanaa hadda ka dalbeen dalka Mareykanka magaalada Florida Miami is preparing actually in September. doonta ugu horeysa waxay imaanaysaa bisha December 25-teeda. waa doomaha markay xabadda ku dhacdo isla markaa ayaga is buuxinaya mataqaanaa sameynaya meesha xabadda kaga dhacday ama baasuukaha meesha kaga dhacay buuxin kara. marka haddii aan doomahaas inta ugu horeysa ay soo gaaraan maraakiibta kalluumaysanaysana aan saarno waxa la yiraahdo monitoring groupka ama dadka horta ilaalinaya ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ka socda ee kalluunka la qabtay, nooca la qabtay, sida loo qabtay, shabaqa lagu qabtay, ilaaladooda u saaran iyo isla ciidan waxaanu saaraynaa ka ilaaliya in ay mataqaanaa qanaasirada ama qoladan doon walba oo nooc walba aad tahay inay u timaado ay markabkaas dhibaato u geysato haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Raxmaan Xaaji Aadan Ibbi ayaan weydiiyey inay dawladda haysato ciidan ilaaliya xeebaha dalka Soomaaliya amba u tababaran dhanka badaha haddii ay jiraan waxa ay ka qaban karaan ammaanka xeebaha dalka Soomaaliya. waxa uu taas kaga jawaabay wasiirka kalluumaysiga ee kheyraadka badda Professor Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibbi. horta waxaan rabaa inaan saxo carabow maraakiibta la afduubay ilaa iyo hadda markab gacanka cad meel laga afduubay ma jiro. maraakiibtan waxaa laga soo qabsadaa badweynta Indiya meesha ugu dhow 1200 kilomitir Seychelles markii la dhaafo ama Mauritius la gaaro ama Zanzibar agteeda Tanzania laga soo qabsaa oo la soo gashtaa badda Soomaaliya. marka waxaan moodaa qanaasirada anada xogaa inay tahay waa dad aad u horumarsan oo aad loo kaalmeeyo oo dad awood badan leh oo satellite leh mataqaanaa GPS leh motherships leh ayaa ummadda Soomaalida hadda waxa criminalska dambiilayaasha ee ka shaqeysanaya arrimaha qanaasirada horta ka kaalmeeya. maaha ilaa doon Soomaaliyeed oo boolba oo kalluumaysata intay fuulaan wiilal Soomaaliya horta ma soo qabsanayaan, waxaa lagu soo qabsadaa awood ka sarreyso awoodda mataqaanaa Soomaalida. marka annagu insha Allahu ta'ala waxaanu leenahay ciidan ilaa 657 ah oo hadda loo xiray tababarka oo General Admiral Farax Qare uu mas'uul ka yahay. madaxweynaha ayaan amarkaas bixiyay
waanu dhamaaday tababarkii haddana waa la hubiyey insha allahu tacaala markii ay doomahaas soo gaaraanna shaqada ugu horreysa qabsan doonaa dilaar halkan mahad carabow cali telefishinka universal القاهرة.